kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba caalamka meel walbo aad ka joogtaan iyo si walbo aad inoola socotaanba waqtiga ha idiin wacnaado waayahana ha idiin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin leh mar kale iyo fiidiyoo hor leh waad ku mahadsan tahay la joogaaga ee fadlan haddii aad ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aad channelka soo booqato subscribe saar kambareelkana furo si aad mar walba u hesho warbixinadii ugu dambeeyay oo aad u xiiso badan maanta waxaan idin hayaa run ahaantii arin ani ahaan aan aaminay in uu yahay waliba aan aaminsanahay inta wanaagsanna inay u arki doonaan farxad iyo guul aad iyo aad u weyn waxaana ka dambayso lama xaqiro qofka bini'aadamka ah waxa wanaag uu qabtana waqtiga uu qabtay waa la xusayaa wixii xumaan uu qabtana wixii uu qabto oo xumaana waa iyadana waa la xusayaa oo labadaba lagama been sheegi doono waxa mahaddaasi ilaahay weyn ayaa iska leh ka sokow waxa iska leh Faa'isa Caamir oo run ahaantii muujisay karti iyo dadaal dheeri ah waliba samaysay arin aniga aan aad ugu farxo inta samaha jecelna ay aad ugu farxi doonto waxa ay samaysay waxa ay isku keentay laba qof oo social media walaal ku ahaa markii horena walaal ahaa laakiin markii dambe qaladaad yar oo soo dhaxgalay darteed isla gaaray meel aanan aad u qurux badnayn laakiin dib isku soo qabtay oo saaxada wanaaga ku soo laabtay waa qadar iyo walaasheen aad wada taqaanaan Ilhaan Xarago run ahaantii social media waad ogeedeen wixii ka dhacay horta intaan idin galin faala iyo ifafaala kadib ka hor waxaan jeclaan lahaa horta inaan marka hore aan soo wada aragno Faa'isa Caamir sida ay ugu suurta gashay ama sida ay u damacday ay u qaaday iyo qofkii marka horeba soo codsaday in la heshiisiyo labadan qof marka qadar anoo guriga iska joogo horta waxaan dhacay social media waa wax fiican ma ahayn waana ka xumahay marka qadar ay soo waco igu dhahay walaalahay Faa'isooy dhibaatada dhacdo waa aragtay marka walaalahay waxaan go'aansaday laga hatta bilaw hatta waa iska fahansanaa inaan qaldanaa laakiin maanta waxa iga soo go'day in walaashay Ilhaan maadaama adiga saaxiibad tihiin oo aad iskugu fiican tihiin waxaan jeclaaday ina walaashayda xaal mariyo sida soo aragteen qadar ayaa ka codsaday in uu heshiis ay dhax dhigto iyada isaga iyo Ilhaan Xarago run ahaantii Ilhaan Xarago kalsooni badan ayaa ka qabay dhahdeen igamene diidin oo way iga ogolaatay waa qof wanaagsan wixii ku xiran waa dad wanaagsan really qof bini'aadamku way isgaaraan laakiin waxa qurux badan in ay dadka markay isgaaraan kadib ay fahmaan waxyaabaha ay isku hayaan in ay dhameystiraan ama iska dhameysaan oo wanaag ay ku dhameystiraan okay waxa dhacday qadar hadalkaas markii aan maqlay kadib waxaan run ahaantii aad u jeclaystay maadaama ay tahay albaabka ugu horeeyay ee kooxda xujo dhibaatooyinka ka dhex taagan oo social media maalmihii la soo dhaafay sida xoogga u haystay waxaan jeclaystay ama aan ku sii fikiray anoo fiidiyowga daawanayo in tan bilow ay noqoto dhamaadkina ay noqon doonto kooxdii oo aan wada jeclayn oo dhan oo dib iskugu soo laabta iyagoo isku qalbi furan حقيقة مركي هذا الكأسي داوضي وحان أركي وآن رون أهانتي مرلبات كو قنعي قدر أو أفكي سكله وحان جعله سيدا أي ولا شيء أي سميسي فائسة عامر سي لمد أنا أنيغانا أهان سميو أو أن نقضو مدوح اسكو كينا رون أهانتي دبدا أن أصو يرداوانو واسكو صلابانينا ما شاء الله waxaan soo deyn doonaa insha Allah dhamaan dadka ay waxya ka dhaxeeyaan si kasto aan awoodeen noqotaba inaan isu keenay inta awoodeedu tahay insha Allah inaan ku dadaalo inta awoodi karto inta awooda oo markaan nabadood naaga haysanaa nabadoonka ninkan aan sida soo aragteen qadar qudhiisa dambigiisana wuu qaatay kadib markuu raali geliyo wuxuu sii fikirayaa in ummadda inteeda kalena ay ilaahay qalbiyadooda isku soo duwo isna oo shaqadeeda galo oo la galo Faa'isa Caamir iyo wiil kale oo la fadhiya aan ruuxantii ma aqaani laakiin waxaan idin leeyahay dhamaantiin waxaad qabateen wax ku dayasho mudan waxaana idin xusi doonto taariikhda oo sababtoo ah dadka intooda badan waxa ay jecel yihiin in ay isku dhacyada ay bataan si maalmo gaaban amaba aanan iraahdo wax yar ay views u helaan viewskaas ay helayaan ma fahmayaan imise qof ayaa ku sii kala fogaanayso
imise qof ayaa dagaalkani uu saameyntiisa uu yeelanayaa meesha aad joogtaan waa meel qurba ah xaqiiqda inta qurbaha joogtaan way dareemi kartaa xanuunka ay leedahay markii aad garba weydid waxaan ka wadaa markii aad koox aad ka tirsanayd amaba dad aad tiim wada ahaadeen oo aad iskugu fiicneedeen oo run ahaantii aad isku dhex gasheen markii aad ka dhex baxdid oo haddana aadan kaga dhex bixin si kale oo xumaan aad kaga dhex baxdaan cidla intaa leeg aad dareemi kartaa sababtoo ah markii wax la sameynayo waxaa inta badan ay nafaha bini'aadamka ay dareemaan in ay habi yihiin inta yarta ah wax la jilayo ha noqoto iyo inta isdhexgalka bulshada ay isdhexgalayaan waxaad dareemaysaa in nafsad ahaan aad habi noqonayso laakiin markii aad guri isku soo xirtaan oo run ahaantii aad soo koobto waxaad dareemaysaa cidla aad u weyn dalku waa qurbo meesha la wada joogo waa qurbo oo qof walba way dareemi kartaa maanta dhibaatada iyo culayska intaas la eg marka waxaan aad ugu farxay bilowgan hore ay bilaabeen waxaan idin leeyahay ha ka caajisina waxa dhici doonto in aad aragtaan xitaa caqabada idinka hor imaado tusaale ahaan qof ayaa waxaad leedahay walaal waxaan doonayaa in dhibaatada idin haysato ama dhibaatada idinka dhaxayso adiga iyo heblaay inaan dhammaystiro qofkaas markii kuma oranaya haye waxaa laga yaabaa in uu ku jiijiido waxaa laga yaabaa in uu dhibaatooyin kale isna uu sheegto marka waxaad in badan aad samaysaan in aad dulqaad samaysaan dulqaad yeesha waxaad isku daydaan in badan in aad dadka idinka wax aad kala kulantaan aadan dhag u dhigin haddii ay xumaan noqoto inaad dhag u dhigin badanaan isku daya in samaha aad raadinaysaan waqti badan aad gelisaan si aad uga miro dhalisaan qofka haddii aad mar la hadashaan oo idinka hor yimaado markiiba haboodina oo hadheen qofkan wuu diiday ee halkaa inooga gooya qofka sii raaca oo waxaad sii waraysataan oo aad sii raadisaan waxyaabaha uu u diiday inuu walaalkii la heshiiyo sababtii ku kaliftay waxaadna isku daydaan inta badan inta aad wax ka qaban kartaan inaad ka qabataan ogaadana geedka xagga sare lagama gooyo haddii uu xagga sare oo ka go'o waa soo baxayaa laakiin haddii uu jirida bukaan uu ka galo aad bay u dhib badan tahay marka waxaad samaysaan meesha ugu horeysay oo dhibka uu ka soo bilowday waxaan rajaynayaa in aad asibtaan oo aad ka bilowdaan hawsha waana ognahay oo dhammaan waa la wada ogyahay Abuukar Mahdi ayuu ka soo bilowday waxaad isku daydaan in aad Abuukar Mahdi horta marka ugu horeysay aad u tagtaan aadna xalisaan oo aad dejisaan kadibna aad ka codsataan in arrinkani maanta aad rabtiin ee wanaaga ah in aad wax ka qabataan in uu idin ogolaado inaad wax ka qabataan halka markii aad meel soo dhigtaan inta kale tan way ka sii sahlan tahay waan hubaa oo waxa idin noqon doontaa mid sahla ah oo aad guul dhow ka gaartaan insha Allah waana idin rajaynayaa boqolkiiba boqol waana idin kugu duceynayaa waliba in arrinkani wanaaga ah oo Ilaahay idin aqbalo sida aad u rabtaan ay wax walba idin kugu dhamaadaan waxaana rajaynayaa markii ka dambeysay in aan ka soo hadli doono idinkoo dhammaan meel iskugu wada yimid oo iswada cafiyay sida ay maanta isku cafiyeen ilaahan xarago iyo qadar insha Allah biidnillaahi alkariim sariicad idinkana ducada waa xaqiina inta aan marka labaad iyo mar saddexaad kulmi doono inta samaha jecel oo dhan waxaan idin leeyahay fi amaanillah iyo sarag dambe oo xiiso leh